waxaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti soo gaaray wafdi heer wasiirra iyo agaasimayaal ka kooban oo ka socda dalka Jamhuuriyadda Somalilan oo ay ka mid yihiin wasiirka gaadiidka horumarinta wadooyinka Somalilan, wasiirka horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Somalilan iyo agaasimaha guud ee hay'adda wadooyinka dalka Jamhuuriyadda Somalilan. Safiirka Somalilan u fadhiya waddanka Jabuuti ayaa waxa uu maanta shir uga furmay wasaaradda maaliyadda ee dalka Jabuuti. Shirkani ayaa wuxuu daaranaa sidii dalka Jamhuuriyadda Somalilan iyo Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Banka Afrika ay u dhisi lahaayeen waddo 300 oo kiiloomitir oo isku xidha Lowyacado ilaa Boorame ilaa Kalabaydh, waana mashruuc aad u ballaaran. waxaana halkaasi la iskula gorfeeyey sidii hawshaasi loo ambaqaadi lahaa waddadaasi dheer ee isku xidha Lowyacado ilaa Boorame ilaa Kalabaydh. dhinaca waddanka Jabuuti, shirkani ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay ilaa tiro 4 wasiir oo dhinaca Jabuutiya iyo mas'uuliyiin sare oo ka socota Banka Horumarinta Wadamada Afrika. shirkaasi ayaa waxaa lagaga hadlay mowduucyo ku saabsan sidii hore loogu dhisi lahaa amaba loogu bilaabi lahaa waddo dheer oo 300 oo kiiloomitir oo isku xidha Lowyacado, Boorame ilaa Kalabaydh. halkani waxaa maanta nala jooga wafd ballaaran oo wasaaradeed oo ka socda walaaliheen dalka Somaliland. annagana farxad gaar ah ayay noo tahay inaan halkan ku soo dhaweyno sidaad u ogtahay baad dalalka Somaliland iyo Djibouti ilaaqaad iyo taariikh dheer weyn waxa ka dhaxaysa to shacab to dawladeed iyo to dhinac walba oo waji walba leh. annaka waxa farxad gaar ah maanta noo ah hadaba inaan waxyaabo aan soo siyaadino amba ay noo soo siyaadaan wax tabagalaya oo lafdabar u ah isdhexgalka iyo waxa wada qabsiga Somaliland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti. wixii ugu muhiimsanaa ah oo dariiq isku xidhaya Somaliland iyo Jabuuti. haddaan dhex galo mashruuc aad u ballaaran rajo badan laga qabo ilaahay idinkii gobolka aan ka sheekaynayna iyo deegaankaasi ma aanay helin muddo aad u dheer wax horumarna ma helin. isku socodkuna weligeed wuu socdo muu joogsan, waayo Jabuuti markay noqotay xarun ilbaxnimo, xarun dhaqaale, xarun noqotay waxay keentay markaa dadkii inay imanayaan gobolada Somaliland. dariiqay soo mara dariiq aad u adag oo dhib badan oo aan gaadiidku mari karin. dhaqaaqa socodka ah ilaa Boorame gaari doona ama ilaa Wajaale ama ilaa uu Barre kii ka bamro oo ganacsiga haddana ku wajahanaan doona Ethiopia waa wax aad u weyn buu noqon doonaa. shirkan maanta ahaa heer wasiiro labada daraf ee Somaliland iyo Djibouti wuxuu daba socday shirar hore oo khuseeya mashruucan wadada. waxaa kaloo nagu helinayay African Development Bank. mashruucan wuxuu ahaa mid muddo badan daraasadiisu soo socotay, ahmiyad weyn u leh labada wadan. aad baan ugu faraxsanahay maanta sidii maaragtay Djibouti lagu soo dhaweeyay, sidaanu inoo qaabileen, siday baalkii shirka nagu qabanqaabiyeen. marka shirku dabcan wuxuu ka koobnaa dhinaca Somaliland iyo dhinaca Djibouti. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Jabuuti.